magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi Xasan afgarashada la yaqaan waa bataati shaqada anigu maaragtay muddo hal sano ah ayaan maaragtay u shaqeynay aan shabaab ka shaqeynay muddada aan ku jiro waxaan u qaabishanay qaraabadu i geysay aniga sideedaba anigu shabaab uma tigin moogtaa waa la ii geeyay qaraabada meesha i geysay la imaada nin ama anaga idin keensanayna leeyahay nin anaga naga kiin xigsada la imaada amba anaga la imaanayna waxba ka dhaw ka sheegin qaraabada ay waday waa la ii geeyay waxaan u qaabishanay beeraha sikawaadka qaybta sikawaadka ma qaabishanay muddo hal sano aan shaqeeyay qaybta beeraha awalna shalay anaga ku geynaa leeyahay haddana anaga ku yeernay ma wax dhibaatana lama kulmano waa lay wacay aniga layma soo qabanani afka layga wacanay soo dhibo soo baxay kulli nin waliba maaragtay aragtidiisa uu leeyahay anigu ana gartay moogta inaan soo baxo asaguna ninkaas meesha ku maqan aqli uu leeyahay kulli waa fikira muddo jooga waana noo jeedaa moogta marka asagu hadduu soo baxayna ikhtiyaar uu leeyahay wicitaankayga kuma imaanayo hadduu maqnaadana joogtayda ku maqnaamayo bismillaah waa magacayga Nuur Xamuud Sheekh Karaa liira qabiilkayga ayoo meel lagu haysto xiran ay soo qabsaday ayuunka ii geystay al-shabaab hadda markaan ka imaahayeen ayuunka ii yeertay waxay iigu geysteenoo aan u qaabishanayn inaan lamada qofood oo isqabsata oo qaryada ka dhalatay waxay isku kala haystaan cadayntooda aan ula jiray 11 bilood aan la shaqeeyay qaryadana iyo ma dhaafino meel leeyma wadin inta kale tan bishii 12 idoo socotaana ka soo tagay waxaan uga soo tagan tolkayga ay wacday inuu ka shara meeshaas ku geysanay haddana dadkaas waa iska hayaameenoo doorarkoori aadeen oo dad jira maahane anukaana meesha ku geysanay haddana noo imaadaa laygu yiri aniga al-shabaab waxaan u qaabishanay wax tolku aniga oo idinku ay tolka markii ay qabsadeen yiraheen nin meeshan la imaada dhexdiina ka soo shaqeeyo kii gardanan iyo kii gar leh noo kala cadeeya la imaada yiraheen tolku saasoo ii geystay lamada qofood isdacweysa qoftii xoolo iyo wax dheef isku haysata iyo qoftii dulmi hoose isku haysata waxaad xalli weysidoo nabadoonyada iyo adigu aad soo xalli weysiin neesaga soo kaan gudbiya oo neesaga soo kaan wareejiya saasay ay dhihi jireen wax kale maba u qaban ba aniga magacaygu waa Cabdiraxmaan Jiino Indheere naanisteedina waa Soko maadaama kullay al-shabaab anigu aan maadaama ka mid ahay si xornimo aan maanta uga soo tagay oo isaga soo dhiibay anaan maanta anigu aan ka soo tanasulay maanta kullay halkaas baan maanta ka joogay marka intaas ay muddo kullay waxaan la joogay 4 sanada muddada 4 sano waxaan u qaabishanay xagga darwalnimada iyo xagga makaanignimada labadaba maya waxa hadda u dhibo maana la kulmin kullay rag way ii wada yeereen gibigoodaba hadda inta waan saaxiib aan nahay iyo tolkay qaraabadu gacmo furan baa lagu soo dhaweeyay wax dhibo maana la kulmin jirdil baan la kulmin kullay qarashad baa lagu bixiyay wax badan baa kullay dawladda iyo kullay inta walaal ay la garab istaageen mana hadda kullay waxaan ka sheegay ka tabaayana meen sajada magacaygu waxa la yiraahdaa Maxamed Ismaan Yalaxow magaca afgarashada shabaab iyo anina waxa waaye Mahdi marka aan halkan ka cadaynaa muddo aan kamid ahaa jiray ururka al-shabaab muddo adiga 10 sanadood ah ama 12 sano ah waxaan ku soo biiray sanadii 2006 inta kadib heedna waa shaqeynay muddo badan oo hadda laga joogo 3 sano ama 2 sano iyo 9 bilood wax shaqa uma hayn waxaan iska joogaa xaafadayga waxaan ka shaqeysanayaa danayga adduunyo taasoo keentay hay-aday inaan isfaham weynay
shaqadooyinka in barnaamijka ay wadaan ay u cuslaadeen saas darteedana uga tegey iyaguna hadda wax shaqaa iima dirsan 3 sano muddada ah saas darteed aan ugu soo tegey marka inaan ilmahayga u xamaasho oo arladayda ka baxo oo maxay ahaydaan nabad galo anigana layga nabad galo saasaan ugu soo tegey wallaahi horta ciidan aan nahay ciidan ma ogtahay meel wuxuu qaabishanay waa la yaqaanaa oo ciidan meeshii la rabaa loo wadaa shaqadii la rabaa markaas taagana loo adeegsadaa laakiin hadda wax shaqaahoo aniga xila oo nuhay ma jiraan dhallinyarada ku maqa horta nin walba waa nin raga raaliyuuna leeyahay marka baaqadu ma baahnaba ninkii fahmi waa isaga soo tegaya ninkii ma ogtahay hadda dad badan ayaga horreeyo sheegi jira warar badan waa ka soo tagaano ka yimaadiino ka yimaad dhihi jiray qofkii rabo biriga sida aniga uu soo tegey inta go'aansan ka soo tegi rabana waa nin soo tegi raba nin ma ogtahay aan soo tegi rabana ka soo tagtay idaaguna ku soo tegina aaminsana aniga magacayga waxa la yiraahdaa Maxamed Ali Xuseen naanista la yaqaan gacma dheer la yiraahdaa shabaab in muddo la shaqeeyay muddo 10 sano gaaraysa ilaa 6 sanana waa danayga khaas kan qabsay waa isaga tagay waa isfaham weynay shaqadu qaabkii u socoto waa isaga tagay markii ma ciidan aan ahay muddo 7 sano laga joogo taariikhda hadda ma saxay kale 7 sano muddo laga joogo maya 7 sano dukaan ay furay beer ay tabcanay danayga khaas kan qabsay maya wax dhibaato ma jiraan dhulka aan ku noolay 7 sano dhul shaqo oo maamulayo ahayd maadaama ayagii meeshii laga qaaday in waxaan ku khasbanaaday anuguna meesha deganay oo ganacsi aan ku lahay cidda meesha maamulaysa inaan anigu gacanteeda aan galo ilaahay mahadiis waaye waxaan joognaa deegaanka Ceelbaraf ama degmada Ceelbaraf raggan aad u jeedaan oo halkan joogana waa raggii uun shabaab siyaabo kala duwan oo qofba meel ay beri kala jirtay haddana ayagaa noo yimid annagu waxaan xoog ku keennay iyo walax aan soo khasabnay iyo walaxaan xoog ku soo qabanna midna ma jiraan ayagaa noo yimiday shabaabay isaga soo tageen raalligooday ku yimaadeen waa isu soo dhiibeen muddo dhowr cishaane annagay nala joogeen oo gacanta dawladda ku haysay ilaahay mahadiis waaye haddana waa adiga kolba waxay tegaysaa sidii ay Soomaali ku noqon karaan ay dawlad ku noqon karaan ama ay shacab nadiif ku noqon karaan loo shaqay doona hadduu ilaahay yiraahdo marka sidaas darteed wax dhiba iyo wali aan qola aan u gacan haatayno on leenahay kaalaya isu soo dhiiba qola aan leenahana waa jiraan kuwana waa yimaadeen waa isu soo dhiibeen dawladooday u yimaadeen annaguna waa haynaa ilaahay hadduu yiraahdo cidda naga sareysana waa arki doontaa annaguna hadda si nabadgelyahan ku haynaa ilaahay mahadiis waaye waxaan rabnaa kuwa kale baaq aan u diraynaa kuwa kale oo maqan waxaan leenahay kaalaya soo dhawaada saaxiibadiin waa kuwan wax dhiba ma qabaan idinkuna ma qabi doontaan gacan dawlad soo gelaysaan dawladna hadayda dadka shacabka iska leh oo dawlad maqasho waa shacabka muqt marka sidaas darteed arintaas sidaasaan idin la socodsiinaa cid kastaahi oo na arkaysa ama na maqlaysa waxaan sheegaynaa raggaas si nabadgelyo inay isku soo dhiibeen meesha ka muuqanaya waa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh